wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo safaaradda dowladda Soomaaliland ay ku yeelan doonto magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. dhulkaasi oo ay dowladda Itoobiya ugu deeqday markii uu horeysay dowladda Soomaaliland ayaa waxa wasiirka ku helinaya dhagaxdhigaasi ambaasadorka Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika iyo xubno ka tirsan shaqaalaha safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Itoobiya ka howlgala. ugu horeyna waxa warbixin ka bixiyay dhulkaasi la siiyay safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalka Itoobiya wakiilka Soomaaliland u qaabilsan xafiiska ganacsiga ee safaaradda Addis Ababa Yusuf Ahmed Ali isagoo wakiil ka ah safiirka Soomaaliland dalka Itoobiya ambaasador Aadan Geed Qayaad iyo madaxda kale ee safaaradda waxaan ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland dhagaxdhiga dhulkaasi. waxaan weynoo aynu joogno dhulkii safaaraddeena dalka Itoobiya ayna siisay waana 2,000 oo kaariya runtii oo dhigmay ilaa 4 bilood oo ay dhigaysiistiya waxaan noo farxadaa wasiir inaad maanta dhagax dhigaysid dhulkii safaaradda oo aynu insha Allah rajaynayno in muddo kooban dhismaheedana aynu ku bilowno kusoo dhawo wasiir marka insha Allah anagoo safiirkii ka wakiila waxaan ugu soo dhaweynaynaa wasiir inaad noo dhagax dhigtid dhulkii safaaradda oo dhismihiisa si dhaqso ah insha Allah aynu bilaabno. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ambaasador Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo ka waramay baaxadda uu leeyahay dhulka safaaradda la siiyay waxaanu bogaadiyay dhammaan howlwadeennada safaaradda Soomaaliland ee dalka Itoobiya iyo shaqada fiican ay qabteen iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta ka howlgala safaaraddaasi. muddo arrinkan socotay waa ilaahay mahadii hadda intii waliba safiirka cusub uu yimi deyrkiina lagu xidhay laakiin horey inoogu dhammaatay oo dhulku waa inoo cayiman yahay waliba waxa waajiba inaguna inaynu si reciprocal in iyagana dhul horena waa loogu ballan qaaday run ahaantii iyagoo dhulkaaba weli ku jiraan innagana way naga mudan yihiin iyadoo dhul loo doonayo dowladdu u doonayso ayaan anigu la socday marka waxay ila tahay in dowladdiina aad ugu dhiirigelisid iyo madaxweynahaba waxayna qaadi kartaa baan u malaynayaa residency iyo safaaraddii way qaadi labadaba iyo masjid dee waxa weeyaan waa aad baan u hambaliyanayaa runtii safaaradda iyo colka ka shaqeeyo oo dhan safiirkiina dawaa kan inaga maqano isaguna way nala socdaan way ogyahay. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd oo halkaasi ka hadlaya isna u mahadnaqay dowladda Itoobiya oo ka mid ah saaxiibada waaweyn ee Soomaaliland ay adduunka ku leedahay iyo howlwadeennada ka howlgala safaaradda Soomaaliland ee dalka Itoobiya waxaanu wasiirku sheegay in si dhaqso ah u dhisi doonaan dhismaha si cusub ee ay maanta dhagax dhigeen. dhulkan la siiyay oo in mudada aynu haysanay waana daw in aynu dhisno halkan dhul aynu leenahay oo noqdo marka dhulka la eego waxa weeyaan Somaliland baa joogta marka leedahay innaguna saasoo kale inaynu iyagana aynu process soo kala siinaa ay leeyihiin safaaradka ka samaystaan aynu siinaa marka aad bay u tahay farxad weyn aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad markaa badan sida wanaagsaneed waa sii shaqaysan inaynu maanta dhagax dhigno waxaan filayaa tanno inay noqon doonto bilowgii dardargelinta in meeshan ay noqoto meel aynu dhisano oo aynu si dhaqsaa uga dhigano safaaradeennii iyo meeshii kala bedegayey iyo wax kaloo dalkeenu iyo dadkeenu marka yimaadaan kusoo hagaagnayn aad iyo aad mahadsanti. safaaradda Soomaaliland hore ugu jirtay dhismo kara ah ayaa tani waxay noqonaysaa markii uu horeysay ay yeelato dhismo rasmi ah iyadoo ay leedahay waxaana arrintani sii xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ka dhexeeya dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya.